bulshada waxa ku soo badanay rag badan oo Morocco ku qulqulaya ayadoo ma aragtay gabdhahan ay arintaas aad uga soo horjeedaan marka laakiin waxa la leeyahay in Morocco la iska tago oo gabar Moroccan ah la guursado ma ahan wax fudud waa arintana waa ma aragtay ka shaysa inta baraha bulshada lagu arko marka shuruudo dhowr ah la isku xiraa qofkii ka soo bixi karaana gabar Moroccan ah la siiya marka shuruudaha la isku xiro qaarkood waxa kamid ah qofka in la weydiiyo in ayiisa qofka uu yahay maxaa cadeyn ah in qofka aad sheegatay aad tahay sidoo kale dambi horay inaad soo gashay iyo in kalena waa lagu weydiinaya marka qof walba iska socdo ma guursan karo gabar Morocco u dhalatay si walba markaas u doonayo waa inaad la timaado warqadda dhalashada rasmiga ah markaas aan ahayn kuwa aad ka qaadatay dalalka aad horay isaga dhiibtay sharciga markaas ku siiyay nin walba Soomaali oo doonaya inuu gabar Moroccan ah guursado waa inuu marka hore cadeeyo Soomaalinimadiisa xitaa hadii uu haysto passport Mareykan ah marka Soomaalida dhexdooda dabcan arintaas qaab kala la isugu xiraa qofka odayaashiisa inuu keensada la isku xiraa marka laakiin hadda waxa lagaaga baahan yahay Soomaalinimadaada laftirkeeda inaad ma aragta cadeyso waxa kale oo qofka looga baahnaanaya warqad dambi la'aan ah in ma aragta aad ka soo heshid oo aad ka keentid dalka aad ka timid ee aad ku nooleyd tan marka waxa ay ka dhigan tahay in qof tahriib ama sharci darro ku galay oo san guursan karin gabar u dhalatay Morocco kaas waa sharciga koowaad waxa kale qofka laga rabaa ninka Soomaaliga ah warqad caafimaad qabka ah shuruudaha muhiimka ah ay kamid tahay oo gabar Moroccan ah lagu guursan karo si gaar ah shuruudan waxa ay u saameynaysaa ninka dibadda ka yimid ee soo doonta gabar reer Morocco ah waxa baaraya dhakhtar markaas u dhashay Morocco ama mid ka howlgala xarumaha caafimaadka ee dalkaas marka arinta ma fududa qorshaha guurka waa uu fashilmaya ama ugu yaraan dib u dhacaya ku imaan kara hadii baaritaanka caafimaad uu muujiyo shaki caafimaad qab si gaar ah cudurrada markaasi galmada lagu kala qaada la leeyahay waxa kale oo kamid ah saxiixa iyo ogolaanshiyaha xaaskaaga kale ama warqadda cadeynta doobnimada tana ugu darmeystir hadii aad xaas leedahay waxa laga rabaa in xaaskaaga aad ka keentid warqad inay ku ogoshahay inaad xaas kala guursato waxa u maleynaa taas shuruudaha rag badan ay ku dhici doonaan inay kamid tahay marka ka hor inta aan lagu ogolaan in gabar Moroccan ah lagu siiyo waa inaad keentaa warqad cadeynaysa inaad horay u soo guursatay ogolaashana aad haysato hadii aad markaasi wali aadan guursanina sidoo kale aydan inaad cadeysaa laga rabaa sidoo kale halkaasi lagama doonayo mashaqayste iyo in ma aragtay qof aanan gabadha si wanaagsan u dhaqan karin waa dhanka dhaqaalaha marka arintan sidoo kale shuruudaha qayb muhiim ah ka tahay guurka hadii aan eegno saxnuun oo qiimaha ku bixi kara ma ahan sida ay markaasi u fududeysanayaan baraha bulshada ma aragtay lagu arkay laakiin waxa markaasi la sheegayaa in uu ku kici karo lacag ku dhow waxa la leeyahay $20,000 hadii uusan qarashkaaga ahayn aroos ma aragtay gaabagaabay ah ama lacag yar ay markaasi ku baxayso ma laga yeelayo mararka qaar meherka oo kaliya ayaa waxa ku bixi kartaa la leeyahay lacag dhan $3,000 marka shuruudo badan la isku xirayaa ma ahan sida ay u fududahay oo ay ragga halkaasi ugu sii qulqulayaan waxaad moodaa in saxnuun oo laga dhigayo in gabdho jaban ay halkaasi joogaan oo ma aragtay saas darteed ay ragga halkaasi ugu qulqulayaan laakiin shuruudahan iyo qaar kale oo badan ma aragtay la isku xiraa